kulankan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wufuudan ka socday qaramada midoobay ee uu hogaaminayay ku-xigeenka ergiga qaramada midoobay u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ahna isuduwaha arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay Peter de Klerk waxaana lagaga wada hadlay xaaladda guud ee Soomaaliland iyo abaaraha ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo si qoto dheer looga wada xaajooday sidii la iskaga kaashan lahaa arrimaha abaaraha ee Soomaaliland ka jira iyo sidii qaramada midoobay ay gacan weyn uga geysan lahayd xalinta arrimaha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa kulankan ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda caafimaadka iyo gudoomiyaha hay'adda aafooyinka iyo kaydinta raashinka qaran markii uu kulankaasi dhamaaday waxa warbaahinta u sharaxay qodobada kulankan lagu lafaguray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire maanta halkan inoogu yimi oo ina soo ziyaartay wafdi ballaaran oo ka socda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo hogaaminayo ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ahna isla markaana xiriiriyaha amuraha la xiriira bini'aadamnimada madaxweynaha waxay ka wada hadleen xaaladda imka taagan khaasatan xaaladda abaaraha ayay ka wada hadleen iyo sida loo baahan yahay in la iska kaashado sidii arrinka wax looga qaban lahaa iminka iyo mustaqbalka ku-xigeenka ergiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ahna isuduwaha arrimaha bini'aadanimo Peter de Klerk ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay si xeel dheer uga wada hadleen xaaladda abaareed iyo sidii loo heli lahaa dheelitir nololeed oo lagu baritaarayo bulshada abaartu ku dhufatay ensure that we do not fall into famine. Unfortunately, that risk is not completely gone. Also, we discussed in detail the addressing of underlying causes to the current humanitarian crisis, which is particularly the whole issue of food security, the fact that Somaliland waxaan ka wada arrinsanay sidii ugu habbooneed ee loo heli lahaa qorshe fog oo abaaraha wax lagaga qabanayo lost their livestock altogether. And then at the same time, of course, also the whole issue of urbanization and displacement. So we discussed the way forward, and in particular the setting up of waqtiyada soo socda waxa la heli doonaa dhaqaale lagu taageeri doono dadweynaha abaaruhu ay saameeyeen June of this year. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi maalmihii u dambeeyay iyo toddobaadadii u dambeeyayba waxa uu qasriga looga arrimiyo Soomaaliland ee madaxtooyada kula kulmayay wufuud ka socota beesha caalamka oo iskugu jira ambasadoro safiiro iyo daneeyaasha arrimaha horumarinta Soomaaliland wuxuuna kala hadlayay sidii qorshe mid ah oo meelmar ah oo horumarka Soomaaliland iyo bulshadeeda kor loogu qaadayo ay kala shaqeyn lahaayeen diblomaasiyiintan iyo safiiradan madaxweynuhu uu la kulmayay taasoo shacabka reer Soomaaliland yididilo ku abuurtay sidii Soomaaliland beesha caalamka ay xidhiidh dhow la leedahay wax qabsina ay ula wadaagayso Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland